الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أحبتي في الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحليه إسلامكو ودين سريسة لقمنا السر مروحي كسر ريسا xujada iyo burhaanta iyo bayaanka iyo cilmiga ku sareysa. diin xujadeeda la hor istaagi kara ma aha, marna waxay ku sareysaa seefteeda iyo dagaalkeeda iyo awoodeeda ku sareysa. Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka wuxuu inoogu sheegay aayado tilmaamaya isku dayga gaalada ay isku dayayaan inay diintan baabi'iyaan, nuurka ilaahayna inay bakhtiyaan oo damiyaan. haddana rabbi wuxuu tilmaamay tabaaraka wa ta'ala taasi inaysan marnaba suurtagal ahayn. wuxuu rabbi yidhi tabaaraka wa ta'ala fi suurati tawbah yuriiduuna liyutfi'uu nuura allah, waxay doonayaan inay damiyaan oo bakhtiyaan ilaahay iftiinkiisa. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، ألنا واديدي إنه إفتين كيسر ما يسترم ويوحك لواديدي ولو كره الكافرون. قالوا هبك هذينه، قالوا هبك لبسدينه، قالوا هبك نعانه. الله واديدي إنه نور كيسر ما يستروحن كأهين. markaas waxa laga dambeysiyay huwa alladhi arsala rasuulahu bil huda wa diinil haqq. Allah waa midka soo diray rasuulkiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wuxuu la soo diray xaq iyo hanuun. hanuunku wax weeyaan waa warka runta inoo sheegay wax soo socda iyo wax tagay iyo wax jooga ayuu inooga waramay. waa aqeedada saxda iyo iimaanka saxan ee uu inoo sheegeen qaadanay. waa cilmiga naafica ah ee uu inooga tagay ina dhaxal siiyay. hanuun baa lala soo diray, diin xaqana waa lala soo diray. diinta xaqa waa camalka, waa dhaqanka, waa nidaamka nooc walba leh, fardiga leh, dhaqaalaha leh, dastuurka leh, qawaaniinta leh, xeerka qoyska leh, nolosha dhan ku saabsan ee camaliga ah ayaa wuxuu yahay diinul xaq. maxaa loo soo diray nabiga sallallahu alayhi wasallam hanuunka iyo diinta xaqa ah liyudhhirahu ala ad-din kullihi, diimaha kale oo dhan inuu ka saramariyo. diimaha kale oo dhan inuu ka saramariyo noocay doonayaan ha ahaadeen, magacay doonayaan xambaarsanaadeen. laana diintana xaq, wixii ka soo harayna waa baatil. baatil iyo xaqna waa inuu xaqu saramaro oo sareeyo. liyudhhirahu ala ad-din kullihi. saas daraadeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam noloshiisii qaybtii hore iyo dhexdaba iyo dhammaadkeediiba wuxuu ku idhaariyo diintan ku xoojiyay, marna xujo iyo bayaan iyo cadayn iyo sharxid iyo qeexin iyo shubahaadka iyo baatilka gaalada oo la burburiyo. marna awoodda markuu yeeshayna nabigu sallallahu alayhi wasallam jihaad iyo seef iyo dagaal iyo xaq oo la faafiyo. intaba nabigu waa isu taagay, saxaabadiisuna waa isu taageen. sidaas daraadeed liyudhhirahu ala ad-din kullihi walaw kariha al-mushrikuun. gaaladu haba kahdeene, mushrikiintu haba kahdeen. koryeelida diintani waa la kahan, in la damiyana waa la rabaa. geed dheer iyo geed gaabanna waa loo fuulay. nabi maxamed markii la soo saaray salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waa la isugu tagay, in la dilaa la isku dayay, xaq wata in loo istaaga la isku dayay, dacaayad baa lagu furay, wixii alla wixii suurtagal ah baa lagu la dagaalamay. haddana ilaahay nuurkiisi waa ka dhex dusay. wax alla wixii dagaal socday oo dhan waa ka gudbay, waana ka reeyay. sababtu wax way waa nuur alla waay. u fiirso quraanku siduu u cabiray waa tacbiir cajiib ah. wuxuu rabbi tabaaraka wa ta'ala ka dhigay nuurka horta isaga isu tiiriyay, waa nuur alla waay. iftiin makhluuq maaha, waa nuur xagga alle ka socda. kuwan doonaya inay damiyaanna waxay isticmaalayaan oo ku damin rabaan afkooda dacaayad, wax ka sheeg, yaa af xumayn, dagaal afka ah.
وحلم يديها بيدا علماء سيدي روح qorraxda soo baxday afuufahaya oo isku dayaya inuu iftiinkeeda iyo shucaaceeda inuu damiyo ama dayaxa dhalaalaya habeenkii khalqiga iftiiminaya intuu afuufo inuu nuurkiisa damiyo ruux isku dayayo kala waay maantana hadaad qorraxda afuufto miyaa damin karta adiga afku ku daali مستحيل suurtagal ma marnaba inaad qorraxda iyo dayaxa iftiinkooda afuufis ku damiso sidoo kale diinta ilaahay tabaaraka wa taala in dacaayad iyo aflagaadiya dagaal lagu damiyo oo lagu baabiyo suurtagal ma ninka afuufaya isaga daalay oo imisa dawladda tagay oo imisa madax tagtay oo imisa hogaamiye tagay oo diinta ilaahay maalinta ka dambaysa si socotayo si xoogaysanaysa imisa madax iyo dawlada la dagaalamayo isku day inay baaba'aan oo iyagii baaba'ay ayadiina ila maanta ila ay soconayso inta ilaahay ugu talagalay tabaaraka wa taala allah tabaaraka wa taala ba hawshan wata fi surati as-saff sidoo kale buu rabbi ku tilmaamay tabaaraka wa taala yuriduna an yutfi'u nur allah waxay doonayaan ilaahay iftiinkiisa inay damiyaan bay rabaan wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun allahna iftiinkiisa waa dhamaystiraya mid dhamaystiraya way gaaladu haba ka hadeen نبينا صلوات ربي والسلام عليه كما في صحيح مسلم وحليه رسولك وحنوجه كما في مسند أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار دين تاني وحي قاري دون تاب النبي وكل عرض صلى الله عليه وسلم ملك استوى هبين كمجدجيسو قارو مالين تفتين كذون قارو وأدون كورن دين تاني وحي قاري دون تاب النبي صلى الله عليه وسلم الله كتجي ما يجوري دوبا كديس يميت دغور كديسان تونا وباديه كو دغورتو وغوريها باديه كو دوبدونا ومغالده مغاله يمي تونا كتجي ما يو الله الى دين تنجليو غوري والبو يجلي بري يباديه يا مغالبه waxay ku galaysaa bi'iz aziz iyadoo dadkii haystayna ilaahay cizeeyo sharfay kuwii diiday oo la dagaalamayna ilaahay duleeyay bay ku galaysaa meel walba marka yaa hor istaagi kara wax ilaahay wato aayaadka hadda aynu akhrinay ee suuratu tawbiya saf ku jira dadka qaar kood baa waxa laga yaabaa inay u fasiraan sax diinta islaamku waa soo baxday wayna xoogaysatay caalamkana waa qabsatay taasana laga wada dhuhurkeedii xoogaysigeysay hadda waa u dhamaatay warkaasi waxa beeninaya nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi kama fi sahih muslim ayaa wuxuu yiri Aisha waxay leedahay waxaan maqlay isagoo leh habeenka iyo maalintu tagi maayaan oo adduunku dhamaan maayo ila sanamiyadii carabtu caabudi jirtay dib loo caabudo oo loogu noqdo markaas Aisha waxay tiri ya rasuulullah rasuulka ilaahay waxaan moodayay markuu ilaahay soo dajiyay aayadan huwa alladhi arsala rasuulahu bil huda wa diinil haqq liyudhirahu ala ad-din kulli al-aya aayada markuu ilaahay soo dajiyay waxaan moodayay inaba arintu dhameystirantay dib dambana gaalnimo ayna dadku ugu noqonin iyo sanamyo la caabudo saasaan moodayay adiguna waxaad leedahay dib baa loogu noqon doona caabudkii sanamyada Uzza iyo Laata iyo wixii carabtu caabudi jirtay markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam way ahaan doontaa buur diintani xooggaas iyo awooda iyo way yeelan doontaa laakiin say u xoog badan tahay u socoto khayrkeeda iyo tawxiidkeeda u faafayo ayaa waxa iimaan doonta nabiga sallallahu alayhi wasallam dabayl wanaagsan oo khafiif ah iyo ilaahay soo saaraya markaas waxay qaadaysaa cid kasta oo mu'min oo qalbigiisa iimaan yar ku jiray ayay qabanaysaa oo qaadaysaa naftay ka qaadaysaa dhulka inta yarta ahlul iimaanka marka laga qaado waxa ku soo hadhi doona dad aan khayr lahayn markaasay diintii awooyadood iyo sanamya caabudkii dib ugu noqon doonaan ahadiista nabiga si cadaysay sallallahu alayhi wasallam aakhiru zamaanka yaajuuj iyo maajuuj markay soo baxaan nabi ciise yimid alayhi salatu wasalaam alayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam aakhiru zamaanka dadka ugu dambeeya mu'miniinta waa kooxda nabi ciise hogaaminayo alayhi wa ala nabiyina salatu wasalaam kooxda iyada ah aakhirkeeda ilaahay wuxuu soo saari doonaa dabayl khafiif ah markaasay nafta ka qaadi doontaa dhulka marka waxa laga waayi doonaa cid allah leh
laa ilaaha ila allahu waxle oo dhan baa dhulka laga waayi doonaa gaalo isroorsanaysaa ku soo hadhido sida dameeruhu isu roorsadaan kuwaasay qiyaamadu ku dhici doontaa buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiisku wuxuu tilmaamayaa aakhiru zamaanka inay awoodda iyo xoogga diintani ay gaadhi doonto iyo dadkiisu sidaas daraaddeed wacdiga ilaahay iyo ballantiisu waa sax marna ma beenowdo shalayna mid bay ahayd maantana waa mid adduunka inta soo martay ruushka iyo jeyshul axmarkiisii iyo muslimiinta siduu u baabiyey sofiyeetkii laysma lahayn sofiyeetku dhulku ka talin jiray bay muslimiin ku dambeeyaan maantana isbedel baa dhacay turkiya oo 100 sano ku dhowaad diinta islaamka lala dagaalamayo dhulka la gelinayo yurub loo jiidayay laysma lahayn diin islaam baa baaqi ku ahaan doonta caalamka meel aan lagala dagaalamin ama aan lagala dagaalamaynin ma jiro af baa lagula dagaalamaya waa la daacayadaynaya wixii xun oo baa loo saarinaya wixii xun oo dhaxawaale wixii xun islaamka leh wixii xun diinta leh xataa wax kale iska dhaaf marayar oo gabadh muslimada ay madaxa ku sidato waa gabadh muslimada xataa xijaab dhamaystiran ma madaxay qarsanaysaa waa marayar waa marayar oo madaxa u saaran bay dawladihii yurub faransiiska denmark maraykanka dawladihii yurub halkaa mare ee madaxa gabadha timaheeda qarinaya baa dagaal lagula jiraa soo cajiib ma dawladdan baarlamaankeedii wasiiradeedii awoodeedii mara yar la dagaalamaysa mara yar laakiin waxaad ogaanaysaa maradaasi waa astaan matalaysa diin matalaysa waa aaway marka si walba la yeel ومع ذلك ما أنت أنشوجنو سوى البلولة دجالمي وحي حنو دان لصاري عيدا من لجوك عيي بقال أهل لولة دجالمي ولا ددي سي علماء دي سي لحري وحنو دان لصاري سوى البلولة دجالمي ما أنت وحي قريان مراكز بحثك يسنترد باريست الرجال بيت كمرايكن كيوروب وحي قريان دين تأدون كأوقفها في الدبنا وإسلامك diinta ugu faafida badan adduunka waa islaamka wariyaa riixaya wax dawlad oo dabada ka joogta miyaad ogtiin hal dawlad oo adduunka maanta ka jirta oo islaamka siduu yahay intay u qaadatay u difaacayso u daba taagani ma jirto hal dawlad laakiin isaga dawlad ah xujadiisa iyo burhaantiisa dawlad ah inuu keligii qulubta furtaa dawlad ah asagoon dhaqaalana lagu faafinaynin xoog iyo ciidan aan lagu faafinaynin inuu cid walba galo oo guri walba galo oo dawlad walba galo waa quwad daatiya quwad u xambaarsan yahay diinta xambaarsan iyada la fahanteeda waa ma aha sida kristanka kale oo xoolo lagu dawado ma aha ma aha sida adyaanta baatilka kale oo xoolo lagu faafinayo awood iyo ciidan lagu faafinayo ma aha waa diin bihaddi daatiha akhlaaqdeeda fitradeeda aqiidadeeda ayaa bini aadamkiyo qulubtiisa saxda aqbalaysa وأنا مدة كنيسة إن الدين تاني مال والبتشيله علماء يوروبا إسلامي مدح دودي با إسلامي خاطير تودي با إسلامي حاود دم بيسدور بريكور مالنتي سنين تاها ودن كهولن حزبي وحا كتشرة حكتشرة ميدك تفك بالدها وحزبي عنصري والدين تنعب يضد كذا وحزبي كوباقي إن هولن لقبا بحجاب كدمر كان لو ديدو وحزبك كوباقي دينت إسلام ككتل مامي إني تهي شركستو أدونك كتير ودينت إسلام وحزبك قرآن كريم ككتل مامي إنو السنة هي وحزبك مساجد إن لقد سهولا إن لما ممنوعك شقينيا ننكي لبعض حزبك أوينا أيام مالنتي سنينتي وحو إعلامي إنو إسلامي وننكي وحو البير وحو البنسبي كتاب قريي كتابك قريي وحو قريي إنو إسلامك وحكا الشيء قرالك أو سبيني با وحو أتشيدي إني الدين تنو عاير ربي وحكا قريي إني حقته سيدي بكو إسلامي كدبنا هذا وحو قرية كتاب وكد دفاعي دين إسلامك أو أوليه هو دين حقه شلي وحو لدى قال لما ما أنت نو دفاعي يا ما ملتري با سو قبتي ما بوليس با سو قبتي ما سيردون با كيني يا ما عيد با كو قصبتي مايا ما حولون رادينيا مايا دينتا ما انت وضعيga dadkeedu ay ku sugay mid wax laga soo raadsada ma
ومد ما أنت لقى عرري محاكينا مركينا يسوق قلان كلي ما ومثال مساجد كي لدي جري بابري أو هندية أو دجال هذا عروس كدعوة مسلمين تي هندوس وسكول لاين اللي الدمية ما نتدود وحن آخرنا هاي نينكي أجوه الرئي أو مساجد كإنتو فولي منبر كيسة وحنوش هذا محو هاي كوب الله بي دومينتا كوب الله بي هندوس كهامر كايسجا وانينكي أقول نعبا مساجد كدومينتي سنة بالله بي أيا سو إسلام مركو سو إسلامي ودين تات معان كذا الدمية وحو بلن إلهي كوجلي سجاشن مسجد إنودسو سجاشن مسجد تقرير كان آخرية وحو ليه سديتن إيه سديد مسجد بورسي لبن مسجد بقول الله بلو فيرزدا شلي هندوس بوها مساجد الدومينية ما أنت نوا مسلم مساجد الرسي دين تاني نينكي اسكو دايا إنو هور استاغاو أدا لغو أصان دولة دادو ويتاقي أدوغونا واتاقي إيادونا ويسعن ويسيحو غيسن لقاله هذا الله دقالن علماء هذا حبسية دا قلي دعاية دا واحد دون تصميه لكن بإذن الله تبارك وتعالى ربي باوته الله وتو وهل أمباهنا ويسعن بإذن الله تبارك وتعالى وين السعتاء وحبا مركهنية شبين باب الفاتيكان إن أدمان تأركتو إن ودمدي مسلمين تلقوا عسومه أو طمنان كن لا أروريو أو قداس إيه الشركيات أو كسميو دولكي مسلمين تأي أصل كأوها أو ميشاس اللقوا كراميو اللقوا شرفه علماء مسلمين تنا حبسية اللي قبوا حياي مركز سورة النوع عصو كلا أركتو هاو قادر إنه إسلام كده ماضي بل وحوي ومالمه كذبنا تي إلهي بينقوني بإذن الله تبارك وتعالى وح كدرن بو إسلام كصومري مرحلة كدرن بالله صومري سيداس دراد الحقيقة وحوي الإسلام يعلو ولا يعلى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك